الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaynu ka warramaynay darsigii ku saabsiisanaa subulu inhaa'i alkhusuuma aw alkhilaaf, shareecada islaamiga iyo qaababka ay u jidaysay in loo dhammeeyo muranka aadanaha ka dhexeeya iyo isqabqabsiga dhex mara. waxaynu cumuuman tilmaamnay aadanuhu inaanu muran waayin ama isqabqabsi waayin, laakiin inta badan dhibtu waxay ka timaadaa qaabka loo xallilo ama loo dhammeeyo murankaasi. hadduu muranku dhammaan waayo, aakhirihi adduunba waa lagu khasaaraa. walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum baa ilaahay qur-aan ku leeyahy. ha murmina oo nisaac iyo muran iyo dhexdiina marin. haddiise ay taasi dhacdo, maxaa ka ratibmaya? alfashlu wa dhihaabu riix. alfashl iyo dacf, liidnimo, iyo qofku inuu tamar dareeyo iyo inuu qiimo beelo, iyo dhihaabu riix, dowladnimada iyo magac iyo maamuuska aad leedahay inuu tago. ilahi wuxuu leeyay haddaa isqabataan oo nisaaciina ah xal u weydaan, adduunka intaasaa ka rakibanta. ama aakhiro, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa maalin kasta oo isniina ama khamiisa in acmaasha ilaahay loo soo bandhigo, dabeetana ilaahay dembigooda wuu dhaafaa qof kasta oo saaxibu tawxiid ah, ilaahay keli yeelay, keligii caabuday, aan cidna ugu shariik yeelin, laba mooyaane nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. laba dhexdooda shaxnaa iyo dhib ay u dhaxayso, labadaa ilaahay wuxuu idhaahdaa andira haadayni xataa yastalixa. labadaa dib ha loo dhiga arrinkooda ilaa iyo intay ka heshiinayaan. waxaa xaqiiqa ah markaa muranki iyo isqabsigu waxaa laga dhaxlaa adduunka iyo aakhiraba inaanu fiicnayn. walidalik shareecadu waxay noogu yeedhay baynu nihi laa budda min xal. xalkana saddex wadaynu ku tilmaamno. in la kala guuro unoo la yidhahdo ina kala fogeeya xal maaha, ama qofka waanu cadhoodaha iga tago. waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa wuxuu ku tilmaamayaa hajru lmuslimi akhaahu sanatan ka safki dami. qofka mu'minka ahi inuu walaalkiisa kale mu'minkaa ka dheeraado, ka durko, sanad inuu ka maqnaadaa inay la mid tahay ka safki damihi, dhiiggiisa u qubay. iyadoo laysu dudayana dee lama wada joogi karo. idan laa budda min xal. waxaynu idhi xulusha shareecadu taqaano markaa kow, waxaynu idhi ima alcafwu aw alsulxu aw altaxkiimu walqadaa. saddexdaa miduun in la sameeyo. qodobkii koowaad ee ahaa masalati alcaf waynu ka hadalnay, iyo majaalaadka ama meelaha uu cafigu galo. biidn illaahi tacaala waxaan isku dayi doonaa caawana inaan soo bandhigno masalati sulx, masalada heshiiska ku saabsiisan. waynu leenahay mowduuca sulxigu waa ahmiyo weyn buu ku leeyahay nolosha bini aadamka oo dhan. majaalaadkii aynu cafwiga ka soo sheegnay oo dhanna wuu galaa. ha noqoto laba qof dhexdood, ha noqoto laba kooxood dhexdood, ha noqoto laba dowladood dhexdood,
ha noqoto gaaliyo muslim dhexdood, ha noqoto dowlado muslima dhexdood, miduu doonaba ha noqdo, dhammaantood sulxigu wuu galaa majaalaadkii aynu inta badan ka soo warramayno aynu cafiga ku tilmaamnay. cinwaan caamana ilaahay wuu siiyo uu ku tilmaamayo wasulxu khayr baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala. sulxiga shareecadu ay taqaano kay waafaqsanayd hadduu yahay, ilaahay wuxuu tilmaamayaa sulxigu, heshiisku inuu khayr yahay, khayr mutlaqa inuu yahay haddii uu waafaqo weeyaan shareecadu sida ay tilmaamtay. maanta caalam alfikri alqaanuuni ama dunidu aqoon-yahanka qaanuunigii maanta dunida dhankay u janjeedhaana waa itijaahu sulx. walidalik baad majaalis tiro badan oo duwaliya ama dowladaha ka dhaxaysa baad maqlaysaa mufaawadaat iyo xiwaaraat iyo wadahadallo ka socda oo intaa la gorgortamayo o laysku soo noqonayo oo la wado ilaa heshiis laga gaadho. heshiiskaasi dowlada ha dhex galo oo ha dhex marayo, sharikaadka dhaqaalaha ha dhex marayo. waxaa laysku dayaa inaan maxaakiimta marka hore la geynine la gaadho qaanuunka rabbaaniga ee qur-aanka ku qoranaya wasulxu khayr. sulxigu waxay culammadu yidhaahdaan kama yara bay yidhaahdeen dowri alqadaa. umamka dowladda ama ummad aan qadaa lahayni ma jirto, ummad aan ministry dhan u samaysanin cadaaladda iyo maxaakimta iyo waxa kani, ummad waliba way leedahay. haddana waxay culimmadu yidhaahdaan kama yara masalada sulxigu masalada qadaagaa kama yara, bale mararka qaarkood waxaa la yidhaahdaa qadaaguna xuquuqduu celiyaa, maxaakimta iyo garsoorka iyo in dadka la kala xukumaa wa raddi alxuquuqi ilaa ahliha. laakiin waxay dhahdaan sulxigu isagu wuxuu sameeyaa bay yidhahdeen raddi lquluubi bacduhum ilaa bacd, quluubta bini aadamkuu isu celiyaa. walidalik baa ahar laga soo arooriyo cumar bn اlkhadaab radia allahu canhu ardaa ayaa wuxuu leeyahay raddu lkhusuuma xataa yastalixuu. dadkiisii cumaashii ama qudaadiisi isagoo la hadlaya wuxuu leeyahay raddu lkhusuuma xataa yastalixuu, celiya dadka is haysta ilaa ay ka heshiinayaan, faina fasla alqadaa'i yuurisu baynahum adaqaa'im. xukunku nowcan maa xasaasiyaad qalbiya buu reebaa, laakiin wuxuu leeyahay sulxigu wuxuu keenaa labada qoloba iyagoo raaliya inay kala tagaan. sida awgeed haddii natiijada khilaafku iyo nisaacu iyo isqabsigu ay tahay dacfi ka ratibma ama fashal dunawiya ama liidashiya taagdarro adduunka kugu dhacda iyo aakhiro oo aan khayr badani ku horeynin saynu tilmaamnay, natiijada sulxiguna waa caafimaad iyo dawo iyo naxariis ummadda dhexdeeda timaada. dawaa'ifta ama kooxaha u quma inay bini aadamka islaaxiyaan oo dhex galaan waxay uga dhigan yihiin bay yidhaahdaan umamka halka ugu jiro addifaaci ilmadani. dunida dabku markuu dhaco dowlad waliba waxay leedahay dad loogu talagalay inay ka hortagaan maxay dabdamisa, fire brigade, ciidan dhan oo u diyaara inuu meeshii dab ka dhaco tago oo uu damiyo amase baktiyo. fakadalik dadka islaaxa u qumiya muslixiinta ahi waa fire brigade-kii ama waa difaaci ilmadani loogu talagalay ummadda nisaaceeda iyo dhibteeda inay zuuliyaan. sida awgeed sulxigu asli lkalima fi luga min salaxa yasluxu waa ضد الإفساد أو الفساد. إصلاحنا waa ضد الإفساد، صلxiguna waa ضد الفساد.
terminology ahaan ama eray bixin ahaan musطalax ahaanna waxaa loo yaqaanaa waa zuulin la zuuliyo ama baabi'in la baabi'iyo cadaawaadka iyo isqabsiga ummadda dhex yaalla oo beddelkeeda wi'aam iyo iswaafaq iyo nabadgelyo ummadda la dhex dhigo amase waa inhaa'i alkhusuuma wa qaطci الnisaac biطariiqa wudiya bayna alkhusuumi duna allujuu'i ila alqadaa. waxaynu markaa ka warrami doonaa sulxiga iyo aqsaamtiisa, sulxiga iyo majaalaadka uu galo, sulxiga iyo qur-aanka iyo sunnadu siday usoo bandhigeen, sulxiga ama heshiiska iyo bashariyadda dambe xataa mawaaqifta ay ka taagan tahay. heshiisku wuxuu dhex mari karaa muslim iyo gaal, dowlad muslim iyo dowlad gaala ah, bulsho muslimiina dhexdeed, afraad ama kooxo muslimiina, qabaa'il iyo jamaacaad muslima dhexdood. wuxuu dhex dhici karaa baynu leenahay qoys iyo reer isqaba, nin iyo xaaskii. ayankan waxaan leenahay shareecadu waxay inoo tilmaamaysaa maalan fii qadaaya alusar markaynu tilmaamno arrimaha guriga ku saabsiisan unuga ugu yara bulsheed. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahuma sulxa wasulxu khayr wauxdirat ilanfusu shux wain tuxsinuu watataquu faina allaha kana bima tacmaluuna khabiira. labada isqaba dembi korkooda ma ahaanin baa ilaahay yidhi hadday dhexdooda sulxi iyo heshiis galaan. yacni bini aadamku mar kasta qaanuun qura kuma wada dhaqmo, laakiin waa laysu tanaasulaa. sulxiga asalkiisuba waxa weeyaan in qof waliba qofka kale wax uga tanaasulo oo meel dhexe laysugu yimaado. ilahay wuxuu leeyahy labada isqabaa hadday meel dhexe isugu yimaadaan dembi maaha, bale ilaahay wuxuu leeyahy wasulxu khayr, meel dhexe inay isugu yimaadaan baa khayra. markaasaa ilaahay aayadda wuxuu ku xigsiiyey wauxdirat ilanfusu shux, nafta bini aadamka waxaa lagu xaadiriyo lagu soo ururiyey baa la yidhi oo dabeecadeeda iyo sajiyadeeda iyo qaab nololeedka ilaahay u abuuray ka mid ah ashuxu baa ilaahay yidhi dhabcalnimo. insaanku waa waxaygiiga kama tanaasulo, wuu ku badan yahay insaanku dhabcaalnimadu. dhabcaalku waa bakhiilka xaddhaafka ah, shaxiix markaa tahay. ilahay wuxuu leeyay nafta bini aadamkii waa shaxiixad, shuxaasi bini aadamka agtiisa wuu yaallaa. laakiin waxaa loo baahan yahay inaad naftaada rabayso oo aad kortid oo aad aqbashid inaad wax xuquuqdaada ka mida ka tanaasuli kartid si meel dhexe dadku isugu yimaado. wain tuxsinuu watataquu faina allaha kana bima tacmaluuna khabiira. walidalik baa culamadu waxay dhahdaan aayaddan yar 3 goor bay ku soo aroortay kelimatu sulx ilaahay ku celceliyey an yuslixa baynahuma sulxa wa sulxu khayr 3 maraat. waxay tilmaamaysaa bay leeyihin ahmiyadda ay leeyihin. imaam الsacdiy fii tafsiirihi wuxuu leeyahay cumuumu lafdiga waxaa laga fahmi karaa buu leeyahy ayi munaasaca bini aadamka dhex marta, isqabsi kasta oo bini aadamka dhex mara inay heshiiyaan oo qof waliba xuquuqdiisa wax ka mida uu ka tanaasulo inuu khayrku ku jiro. qadiyadda jamaacada iyo bulshaweynta muslimiinta ah maalan ilaahi subxaanaه wa tacaala fii suurati اlanfaal aayaadka ugu horeeya wuxuu kaga waramayaa dhacdo saxaabadii ka dhacday. bini aadamka in shaxiixnimadu naftiisa iskaga abuurantay qisadan baa aada u tilmaamaysa inuu qofka bini aadamkii u baahan yahay in badan inuu naftiisa muraajaceeyo, dib ugu noqdo oo uu rabeeyo, isku dayo inuu koriyo. waayo waxaa dhacay saxaabadii waxay ka hijroodeen adduunkoodii iyo maalkoodii iyo waxoodii o dhan ilaahay dartii bay uga tageen.
laakiin dagaalkii koowaad ay gaal la galaan markay galeen iyaga iyo quraysh dagaalkii dhex maray ghaswatu badar iyagoo tiro yar baa ilaahay u hiiliyey subxaanahu wa tacaala dabeetana waxay jebiyeen gaaladii markay jebiyeen jamaacadii muslimiinta ahayd 3 qaybood bay noqdeen gaaladii jabtay qolo caymadisa oo sii firdhisa oo eryata gaaladiina markii laga hadhi waayey waxay isku dayeen waxay siteen oo dhan inay daadiyaan si fardaha iyo awrta iyo lugtuba ay u dheerayn karto oo dee sidan iminka militarigan logisticskan gaarka a watay iyo waxa kan ma ahayn qof waliba rarkiisa cunneed iyo wixiisoo dhan isagaa sitay markuu qofkii jabay ee uu cararayo wuxuu isku dayey waxaan cuslaynayo o dhan inuu iska daadiyo koox markaa muslimiinta ka midii qoladan bay eriday kooxina wixii la daadiyey bay guratay oo soo ururisay kooxina kamay aamin ahayn qadiyadee waxay ku hadheen nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay gaadh ka hayeen cubaadata bnu saamit saxaabiga la yidhahda xadiidka warinaya wuxuu leeyahay fasaa'at akhlaaquna xoolihii lasoo guray raggu waa basaaradsan yahay wixii adduun la haystay horaa looga soo hijrooday weli futuuxaad ma dhicin oo muslimiintu waxba may furanin madiinaa lagu joogaa hijro aan waxba lagu haysanin waxoogaagii gaalada laga furtay ayuu leeyahy cubaadata bnu saamit akhlaaqdeedii baa ku xumaatay waa lagu murma qoladii urursatay waxay yidhaahdeen intaan annagaa soo urursanoo dee dhacsanay qoladii gaalada eridayna waxay yidhaahdeen maydan gurteen intan annaba waa guri kari lahayne waxaanu ka fogeynaynay gaalkan jabay baanu sii eryeynay qoladii kalena waxay dhahdeen annaba nebigaanu ilaalinaynay calayhi salaatu wasalaam maanan wax guran waayey waxaad dareemaysaa nafta bini aadamka ayaa shaxiixnimadu say ku tahay nimankii shalayta xoolahoodii iskaga yimi ee ilaahay dartii uga yimi haddana nafta bini aadamkii marka la kaakiciyo adduunka ay isku qabsato inay dhici karto ilaahay baa qur-aan soo dejiyey beder ka warramaya intii aan laga warramin beder iyo siday u dhacday iyo wacdarahay muslimiintu muujiyeen iyo gaaladii siday u laayeen iyo ilaahay siduu ugu heliyey waxaa laga bilaaba yas'aluunaka can ilanfaal qul ilanfaalu lilahi walrasuul fattaquu llaha ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala leeyay xoolihii la dhaciyey bay ku weydiinayaan kuwa xukunkooda ila iyo rasuul buu yaallaa lagama jawaabin xukunkoodu siduu noqonaya aayadda 41 ayaa ilaahay kaga jawaabaya sida suuradda ah laakiin waxa lagu bilaabay fattaquu llaha wa aslixuu daata baynikum ilaahay wuxuu leeyay war ilaahay ka baqa oo wa aslixuu daata baynikum saaxibatu lbayn aw daati lbayn وكلمات مضادك في اللغة العربية أي الفرقة هي والوصل لبضب والله هل كان وفرقة دي بوجرته إلهي سبحانه وتعالى وحليه وأصلحوا ذات بينكم وارحليل كيدين لحية أما فرقة يدين لحية وناتية واسكو حدمة وأطيعوا الله والرسول الله هي الرسول كيبا أقبل إن كنتم مؤمنين هداتهم برب لي سبحانه وتعالى كوا مؤمنين إلهي سبحانه وتعالى جماعة يرحر قفتا لحق شيء لقصاره أي قرآن كي بدر كور رمى يوردن يوحي يقول لقاري لوغو بلاغي وهي قضية وقضية مهمة كذب إلهي سبحانه وتعالى آيات كذبها هذا وسيدي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إلهي وسيدي haddana ghaswatu uxud ayaa si practical loo baray marka nisaacu yimaadiyo isqabqabsiga iyo ilaahay iyo rasuulkiisa oo la adeec waayo sida loo jabo quraanku wuxuu ina baraya marka hadday jamaaca tahay in islaax daatul bayn laga raadiyo hadday laba fardi tahay laba qof tahay ilaahay wuxuu leeyahay innama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum dadka mu'miniintii waa walaalo
فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إصلاح كدحرادية ولا لذن بالرب إليه سبحانه وتعالى أخوة إسلامية وفريضة شرعية ولذلك سأنا حكتني أقارن هدي بدي بالدعوة إصلاحية بإله إليه سبحانه وتعالى أيا كان وحل يسقها يهاها كرسيها هذا قضية سياسية هذا قضية دماء هذا استيلها هذا حولها وحيدون طبعا النوط حديث الصحيحين كقصة أروري النبي عليه الصلاة والسلام سيقول قريه سمت كميدة كتيرة أيوح مغلي لبس صحابي ومساجد كاسكوها يستدى حديث وكعب بن مالك صحابي اللي ورنشري يا ابن أبي حيدرت صحابي اللي ورنشري ابن أبي حدرت صحابي الله يلاهدو الدين بكاء ما هذا كعب بن مالك وقت الدين كان ويقاردي وأنا بحين كرواي دبتنا والس قبصدا هذا الكامر كتاك تاجمي نبي عليه الصلاة والسلام هذا الكودي بمغلي لابد أننا مرمى يمساك كان حديث يسكوهيا كذبنا النبي عليه الصلاة والسلام انتو حجرة دي سكة صباحي أيو كعب بن مالك ويالي يا كعب بويري واركعبو لبيك يا رسول الله أيوه جواب وأجيب يا مسكوا داعي إليه رسول كسيو نبي عليه الصلاة والسلام قعنته وحوقت المامي كعب مركا وحموتشنا يا إنو ننكو دينتا ننكن نص كداية وحو إشارة قعنته واربد كدا برد يعني نص ننكن كداف كعب وحيري مركز قد فعلت يا رسول الله ويا كي كلو نبي حكولي قم فقده ورد نكع وباقي صبح ميلك الرادي يعني النبي عليه الصلاة والسلام لبدا سحابة مرنسم بودح قلو حكول حدحادي كي حولا لهانا وحولي ورنس كده كي حولها لو دينتا لغولهانا وحليلي ورد ضحو نسك كلاسيون الرادي بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا لما فردي هديين وحي دوننا يسبهي أنا وإلا نحقلها لما طائفة ومسلمين تكمد هديين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما لما كوحد المؤمنين تكمد هدي استلام فأصلحوا بينهما بايلهيل لحدود هجاتية لما كوحد لما مدينة قرلة دي مدينة قردرانتا ويدعي كرتا labadaba gardaroonayaan waa dhici kartaa waxa la isku hayaa waa dhici kartaa faham diimeed oo qaldamayba inuu yahay waa dhici kartaa waxa la isku hayaa hunguri iyo xoolo iyo dhul iyo wax la mid inuu yahay waa dhici kartaa manaasib siyaasiya iyo wax la mid inuu yahay ku doonaba ha noqdo ilaahay wuxuu leeyahay muuminiintu haday istilaan dhexdhexaadiya ولذلك ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في فتح الباري wuxuu leeyahay hadday diin qaldantay tahay buu leeyahay waxa isku hayaan dadka aqoonyahanka iyo culimada waxa korkooda saaran inay xujada bayaamiyaan oo dadka qaldan ay u sheegaan xujada hadday labaduba qaldan yihiin labadaba in loo sheego buu leeyahay hadday qolo qaldan tahayna in loo bayaamiyo bayaaminta dabadeed hadday diidaan markaasi waa fayn bagat ixdaahuma bay gelayaan buu leeyahay waa in laga soo horjeestaa kooxda kale waa in la raaca إلهي وحط الماما يا آياتك كان والطوائف أما كوحا مسلمين هدي استلام نحدودا نحدحات كالرادية إصلاح كبعض الدونة هدي ميدي ديدو كبرتو لدك الله ما إلا ينتهي حقه وصون قونسه هدي سيأغبش حقه فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين عدالة كل نحدحادية بإلهي سبحانه وتعالى ولذلك قبيل قرى هالنقطة لبا قبيل هالنقطة دولة قرى هالنقطة لبا الدولات هالنقطة أسباب دينية هالنقطة وحلسكو هي أسباب دنوية هالنقطة وح كستو أي تهيبا وحا ضدك مسلمين تأكور كودا صارا إن إصلاح ضدك كدح راديان إيا إن دقالك اللي تشوشي الربشدو إن دماتو هدي أي دمان ويدو عندك قردران لين لقبطو وقعنت لقبطو إصلاحه حوبا هي
wax badan. laakiin ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya waxa bini aadamku shir iyo faq u galaa inaan khayr ku jirin saddex mooyaane. laa khayra fi kathiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima. khayr kuma jira baa ilaahay yidhi faqa iyo shirarka badan ee dadku ay sameeyaan, saddex shir ama saddex faq mooyaane. cid sadaqo dadka faraysa in waxa loo shirayo ama loo faqayo ama afka laysu saaraya uu yahay in cid wax la taro, iyo inuu yahay aw macruufin sama laysfarayo, waxaan laga tashanayo ama loo faqaya inuu yahay wanaag dadka la farayo. ka saddexaad ilaahay wuxuu leeyahay aw islaaxin bayna annaas, shirarka iyo faqaqa lagu tala jiro in dadka lagu islaaxiyo iyana kuwa khayrkay ku jiraan. cidda kuwaa qabata baa ilaahay leeyahay waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illaah, sidan cidda yeesha isagoo rajaynaya ilaahay subxaanah wa tacaala raalli ahaanshiyihiisa, rabbi wuxuu leeyahy fasawfa nu'tiihi ajran cadiima, ajar aada u weyn baanu siinaynaa baa ilaahay leeyahy subxaanah wa tacaala. qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya markaa cid kasta, xataa qof iyo jamaaca hadday yihiin waxa ishaya waa in la dhexdhexaadiya. faman khaafa min muusin janafan aw isma faaslaxa baynahum falaa isma calayhi in allaha gafuurun raxiim. odaygii dhaxalka dardaarmayey haddii uu dardaarankaasi qaldan yahay, ciddii ag joogta inay islaaxiso oo wanaagga u sheegta weeyaan. hadduu dardaaranku qaldan yahay in la yidhahda kada sidan ha u dardaarmina, waa dhici kartaa inuu qaar is leeyahay dhaxalka weydaare ama dhaxalka ku yare ama cid u badi ama cayn. waxa uu samaynayaa janafan ha noqdo miduu khata u sameeyey aw isman ama kas miduu sameeyey u dambaabaya ha noqdo, in islaax la raadiyaabaa habboon. xataa culamada badh baa qaba hadduu qaldan yahay dardaaranku oo adigoo qura aada maqlaysay, dardaaranka inaad islaaxisaabaa ku saaran. ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa qur-aanka waxa dhaartu ka guntanta xataa inaanu ahayn. anugu reer hebel inaan la hadlo ama dadka inaan islaaxiyo ama kuwa waan ka dhaartay ma guntanto, laguma dembaabo. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna annaas wallahu samiicun caliim. dhaartaa ilaahay ku dhaaranaysaan ha ka yeelina mid idinka hor joogsata, ha ka dhigina inaad samaha samaysaan ama ilaahay ka cabsataan ama dadka ay islaaxisaan dhexdooda baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya inay cibaado weyn tahay, walidalik waxaa qur-aanka rabbi uu ku sheegay masaarifu zakaa waxa lagu bixinayo inuu ka mid yahay alislaaxu bayna annaasi ciddii ku daymowda. inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiina walcaamiliina calayha walmu'alafati quluubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إلهي ددك زكاة الله سينا يوحو كتل مامي سيداد السنفي أما سيداد النوع ددك زكاة الله سينا يو قيب سما وحكم والغارمين كوالا هذا كوي ديمو بي هدي لما قفوا هذا نحن حادثي أما لما قبيل أما لما ضد أما لما الدولة هذا نحن حادثي ay noqotay sulxigaa daraaddeed inaad dayn ku gashay. diya laysku hayey, waxbaa laysku hayey, wixii baad badh xambaartay, war heshiiya baad tidhi anigaabaa bixinaya intani, waad xambaartay adugu. gaarim baad tahay fii sabiili lislaax ku inuu dadka islaaxiyo daraaddeed ku daymoobay, xaq waxaad u leedahay in zakada wax lagaa siiyo. zakaadku dadkay ku baxaysaad ka mid noqonaysa. ولذلك القرآن كورمي مسألة الإصلاح والتربدي. إلهي سبحانه وتعالى قرآن بضم بين ورمي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نسنوه التلمامية. حديث كإمام الترمذي وريني والصحيح كشاغي شيخ الألباني نقول راعي
النبي يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل ما يدين ورما النبي يقول عليه الصلاة والسلام وحكفض بدن من درجة الصيام والصلاة والصدقة درجة الصومك هي الصلاة هي الصدقة زكاة وحلا بحنيه هاي علماء يقولون وبعد الفرائض يعني حسك قفك مسلم كوحا معروف وكتشرة صلاة هل تكذا وحا وين إلهي لو قلنا وذيل كمجيه صحيح كما النبي قال عليه الصلاة والسلام إلهي وحا لو قلنا وذا وحا وقفي عن فرائض بعد الفرائض النوافل وحنا قانا أحاديث بدنوا الشيء ليس مثلا أحاديث بدنوا الصنياشة إن جنة لقوق لي أما النار لقى بالبادية صار أرطي الدبا مركا فرال كي صلاة لقى يمادا وحا سنة لتكدا وكالي أما قيام الليل له أما الرواتب له أما الضحى له أما وحا الضوطة له وحا الصلاة لتكدا كسو هراي فرال إيا وحا صون للصوم إيا رمضان كسو هراي وحا صون للصوم إيا رمضان كسو هراي عرفة له عاشوراء له أيام البيض له خميس له السنين له وحا صون سو هراي ودن صدقه وحا أدون لبحيه مركا لغاية ما دزكو أدونك كلا قف بني آدم ومسلم وصدقه يستنكرون انت بوح كفض بدل ما يدين شيء قابل النبي عليه الصلاة والسلام تمعنى هدو حويا وقضية كمدة أرمها عبادات كإلهي اللي قلنا وادي أقوى وين الشريعة الإسلامية يتقامل صحابة وحيدان بلا يا رسول الله ها بيدادين إلهي رسول كيسيو قال إصلاح ذات البين بالنبي ضدك دبتا دحتها الله إصلاح حساب إذن قفك إصلاح وقعية وينو قرتين ويهي قف عبادة سنية رسالة نبيلة ويا قف عبادة نيك صلاة الليل تكن يميا مرنك جتشرين وإلهي وقول دوامي ما يعني عبادة وأركان نيك مساجد اللي سيا صدقات بحين يا أقوام وحسين يا عين كان ميا مرنك جتشرين وإلهي وقول دوامي سبحانه وتعالى وما إلهي وحينا برا سبحانه وتعالى وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام إن إصلاح ذات البين وكفض بدنيه وحاصيونا إذن وعبادة مسلمين تضيع ضي أو بهنا يدبوا النوليان عبادات ومال وقفك أقبل إنه وقت إيه جهد إيه حوق إيه حول ما كن بحيه سو إلهي يعاوضه تنوى وحو باهن إن تكون بحيه حوق إيه حول إيه وقت با سياد قضايا كانوا لما ينكرتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث في البخاري ومسلم بورينا يوم حكوت المامية كل السلامة من الناس عليه الصدقة حبين كستوقف مؤمن كاملة صدقة لقربها وبريبة دبت أنا وحكوت المامية صدقات كايري كمديهين يعدل بين اثنين أي يصلح لبا إن نحن حادثه نحن دقشد مسلمين وصدقات كاسبة كمتين بله مسألة الصلح يدك هشيسين تود لبا قضية أو إسلامك كواوين أو إسو عكسية أيا لبا دبا مسألة المركة لتشوغاي بنانت وحنا نقالنا بنت شريعة الإسلام يعني حرام تهي صحيح كما بنت هو ممنوع مران كما تاجنا لكن حديث البخاري ورنا يا النبي حلي عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا بين علم ما أهب النبي عليه الصلاة والسلام كدتك دحدحادين إياه ورفي عنه كلا قاضي وكلا شيء إمام النووي رحمة الله عليه وحليه والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب حديث الظاهر كسوح شيء بنت لفت يدو إليه هلك كن كبنانتي ولكن الاقتصار على التعريض أفضل والله أعلم نولي إن التعارض التورية يدل وروريكته بقى كصفة بدن وهي علماء دوليين لبدا قفي سيا ما لبدا جماعي سيا هداد انتو دا ونكسن وكلا شيكتد أما ميدي ورو شيء قرقر حسيد وقلدا كلا غارسيسيد si mowqifku uu dabco
oo tenshanku uu dego oo dadku shaydaanku uga yaraado oo islaaxu uu u dhowaado haddaad saa samaysid warkaa aad sheegtay beenaale kuma tihid aakhirana been lagugu qori maayo sida xadiiska daahirkiisa laga fahmayo cagsiguna isna waa sax run aakhiro lagu cadaab galaa jira haddaynu dhi beenaan laysu qabanayn baa jira cagsigeedana run naarta lagu galaa jira nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy xadiidka saxiixeynka ku yaala laa yadkhulu ljannata qataat ama riwaayadda muslim laa yadkhulu ljannata annamaam nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam janno ma galo diradiraale culamadu waxay dhahdaan diradiraalaha kani waa maxay war baad maqashay nin sheegayo ama qabiil laga sheegayo ama cid laga sheegayo waa run warku waa la caayayey waa la maagayay waxbaa laga sheegay waa war sidq iyo run ah qof kale waxaan laga sheegayay waad qaado calaa sabiili lifsaad qofkii kalaad u tagto waxaad tidhi war wala heblaayo ama hebel waxay waxasbulha saasaysba run baad sheegaysaa runtaa naartaa lagu galaa waayo waa run namiimiinimo ah run baan sheegaya kaa socon mayso waa run qasdiga ka dambeeya ama natiijada ka dhalanaysa ay tahay alifsaad bayna qoladani dambaabtay markay ciddan xamatay ama waxa ka sheegtay iyaga inaad ka celisaa unbay ahayd haddaad ka celin karayso wa ilaa inaad warkaa rarto oo qolada kale u sheegtaa ama cidda kale aad u sheegtaa waa ifsaadun bayna annaas waa namiimnimada la sheegayo waa diradiraalenimada la sheegayo walidaalik nebigu wuxuu leeyahy qofka noocaasi jannada ma galo sidaa awgeed islaax waxayn leenahay waa cibaada dadka in la dhexdhexaadiya waa cibaado ilaahay loogu dhowaado waa cibaada baynu leenahay mararka qaarkood beenteedu aanay been ahayn waa cibaada baynu leenahay mararka qaarkood runta ifsaadinaysa naar lagu galayo aanay run noqonaynin waxaa lagu tilmaamaa dadka oo islaax laga dhex raadiya waa sababaha la soo arooriyey yar ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu jamac uga habsaamay salaadeed waxaynu naqaanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey ayu lcamali axabu ila allah ilaahay agtiisa camalkee loogu jacayl badan yahay wuxuu nebigu yihi asalaatu calaa waqtiha salaada waqtigeeda la tukado waqtiga hore yacni iyo fadiiladu ay ku jirto la tukado ayaa ilaahay ugu jacayl badan yahay waa kuu nebigu ku tilmaamayay jamaacada iyo kahabsankeeda waxaan ku hamiyaa rag badh guryo jooga intaan cid idhaahdo masaajidka dadka sii tuki inaan anugu baxo oo dadkaas soo gubo dad in la gubaa waa wax weyn laakiin waxay tilmaamaysaa waxay ka hadheenna inuu wax weyn yahay qadiyadda caynkaasi ah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa oo jooga masaajidkii nebiga war baa soo gaadhay sheegaya ahlu qubaa xaafadda qubal masjidu qubaa halkan uu ka dhisan yahay awal masjid uu nebigu dhiso calayhi salaatu wasalaam ama masaajidkii ugu horreeyey baan idhaahna ee la dhiso muslimiintu cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam masjida nabowi isagaa ka horreeyey masaajidka dadkii xaafaddaa deganaa ayaa isdilay dabeetana dhagxan iyo waxbaa la isku tuuray nebigaa warka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisi buu la hadlo wuxuu leeyahay xadiidka bukhaara warinaya idhabuu binaa nuslix baynahum waar qoladan isdishay ina keena aan soo islaaxinay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa la baxay intii uu dhexdhexaadinta wadee reeraha kan islaaxinayay ayaa salaadii duhur la addimay dabeetana nebigii baa sooba noqon waaya calayhi salaatu wasalaam muddaa la sugay waa raagay bilaal baa abibakar u yimi oo wuxuu ku yihi yaa bilaal ya abibakar nebigii ma hayna calayhi salaatu wasalaam ee dadka ma tukinaysaa haa buu yihi abibakar baa salaada galay oo dadka tukiyey salaada lagu jiro buu nebi maxamed soo noqday calayhi salaatu wasalaam uu yimi oo uu safka soo dhex jeexay oo uu abibakar istaba taagay abibakar se ma awoodin ama se ma jeclaanin inuu nebi maxamed imaamu noqdo is hortaago dib buu uga soo gurtay nebigu wuxuu ishaaray inuu joogo laakiin waa diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam baa tukiyey intii kale xadiidkani wuxuu tilmaamayaa markaasi
ومشروع كلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها وجماعة وكجها بصعبة إنه ضد إصلاحيه هذا مجالات كايقشة هذا إنه مجالات فردية المبنية ما كوحة وحن لنا قضايات كسياسية قابل قشة ومضوا هذا كراسي ده يدولة نمدا يوحنا سوق قبطين لأن حادي يكون في عمد واحد كقرن قرط حديث كبخاري ورينا النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر صحابي اللي ورجله صار وحليه وحاي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبي عارك يقول ما كم إذا النبي قام منبر كسارا ساجد كيسي منبر كفوشا ودين عيسى وتاجي إن يرو ووي هاي النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب يا فاطمة ويل كينا أنا حسن لو رنشري أو يربى ماشى تاجر دبتنا النبي مرنا ضدكو إيجاه marna wiilkan yar buu eegaa dhinaciisa taagan markaasuu wuxuu ku yidhi saxaabadiisii ina bnii haada sayid inankayga kani waa waayeel waa sayid oo siyaadada muxuu ku helay walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaana la arkaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku islaaxiyo laba kooxood oo waaweyn oo muslimiin oo ishaya yani waxaynu naqaanaa ahdigii Uthman ibn Affan radia allahu canhu waardaah in fitna dhacday dad yow masar ka yimi baa kacdoon sameeyey oo cabashooyin u sheegtay Uthman cabashooyinkoodii wuu ka jawaabayay inaanay waxaanay ka cabarayaan xaqiiqooyin jirta ahayn wuu celiyey dabeetana qolyo kala waraaqiya wax hoos ka qoray dib baa adigu fitnadii u bilaabantay fitnadaas markay bilaabantay abi Uthman ibn Affan go-aan buu qaatay ummaddu isaga sababtiisa inaanay isu dilin saxaabadii waaweyneyd baa madiina joogta dowladdii khilaafada ahayd baa nimankan thawrada sameynaya ay ku kaceen aan ku difaacna baa la yidhi Uthman amar wuxuu ku bixiyay ninkii warkayga qaadanayo meeshaada joog aniga cidna ima difaaci karta laa caskari walaa gaadh walaa cid aan u baahnay ma jirto Uthman amarkaasuu bixiyey dabeetana saxaabadii waa ka tageen nimankii doodihii ay wadeen oo dhan wuu ka jawaabay laakiin dadku mar hadday thawraadka iyo waxaasi kacaan dad qawqaa'iyiin oo dhex gala ama wax walaaqa lama sii waayo niman baa Uthman xagga dambe uga soo dhacay isagoo quraan akhrinaya ayaa la dilay Uthman ibn Affan markii la dilay saxaabadii cali bay u tageen cali waxaa la weydiiyey inuu khaliif muslimiinta noqdo waa ka warwareegay akhiiran wuu aqbalay bayca lala galay cali ibn abi aalib wuxuu go-aan qaatay inuu dowladda mar horta dejiyo saxaabo kale waxay u muuqatay in qisaasta la horraysiiyo waxay leeyihiin Uthman ciddii dishay horta ha la qisaaso cidiyo waa caynkaasi u muuqatay casharatu lmubashiriin rag ka mida ku jira Zubayr ibn al-Awwam iyo Talha iyo waxaa ku jira Caaisha waxaa ka mid a qoladii Shaam joogtay markaa iyaga waxay ugu muuqatay ra'yi in horta la qisaaso ciddii Uthman dishay علي بن أبي طالب وأمير المسلمين waxay ugu muuqataa dowladda horta in la dejiyo oo qisaastu waxa ka horeeya buu qabaa cali mushkilad baa haysata khilaafadii islaamiga ahayd dowladnimadii iyo kala dambeyntii hala soo celiyo waqtiga kadib wixii axkaam la fulin karaya hala fuliyo masaladii isdhaaf bay ku dhacday akhiiran nimankii fitnada waday hadday waxaanay degaan dani uguma jirto waxay ka cabsanayaan in axkaamtii la mariyo dabeetana goob kastoo la isugu yimaado ama wada hadal ka dhaco ama si uu dhacba dagaal unbaa bilaabma kooxaanay bilaabmaan marka xarbu sifayn baa dhacay xarbuljamal baa dhacay dagaallo saxaabo badani ku dhimatay iyo dad badani ayaa dhacay dad badan baa dhintay akhiiran
niman baa shiray xajkay ku shireen waxay idhahdeen beleduba waa madaxdayna haysataa madaxdan ha la laayo ninka la yidhaahdo mucaawiye iyo camar ibnu caas iyo caliy ibnu abi aalib kooxdan weynaynu dillaa bay yidhahdeen dadku markaasuu heshiinaya waaba laysa dhaarsaday xajkaa laysku dhaarsanaya fahamku markuu qaldamo waad garan kartaa xajkaa waxaa laysugu dhaarsanayaa kuu nebi moxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam jannuu gelaya in la dilo oo ilaahay loogu dhowaado oo caliy ibn abi aalib ah xajkaa laysku dhaarsaday waa la safray mishankii ma fulin kuwii kale waxay ku guulaysteen inay cali dilaan isagoo salaad subax ku soo socda salaad subax isagoo soo baxayba cali la dilay khilaafadii islaamiga ahayd waxaa loo doortay haddana alxasan ibnu alcaliy xasan oo ciidan 100,000 ku dhodhow wata ayaa wuxuu go-aansaday inuu muslimiinta sulxi ka dhex raadiyo wuxuu go-aansaday inuu heshiisiyo dadka muslimiinta ah wuxuu go-aansaday inuu tadxiya ku sameeyo kursigiisan siyaasiga iyo khilaafadan uu khaliifatulmuslimiin yahay inuu ka daadego sababta qura uga daadegayaan inay tahay dadka muslimiinta dhiigooda inuu joogsado ay heshiiyaan oo dib loo heshiiyo waanu ku guulaystay wuxuu uga dhaadhacay kursigiiba inuu qabsado mucaawiya dadka muslimiinta inay heshiiyaan 5 sannadood oo saxaabadaasi muransanayd iyo ciddii taabiciinta ee la socotay muslimiintu tuulo cusub may furanin waayo iyagunbaaba isku mashquul ahaa iyagunbaa istilayay bacda hadihi 5 sanawaat markii heshiisku dhacay kadib ayaa futuuxaadkii islaamiga wixii bilaabmay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa ina bnii hada sayid aniga wiilkayga kani waa sayid buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam siyaadada tan iyo odaynimadan iyo waayeelnimadan wuxuu ku helay inuu yahay maxay ilaahay gacantiisa uu ku islaaxiyey daa'ifo ama dawaa'if muslimiin oo ishaysoo dil iyo dhiigu dhex maray oo qadaaya siyaasiya isku haya caamil jamaaca loo bixiyey muslimiintii dib bay wada heshiiyeen xasan ibnu calina wuxuu aqbalay inuu khilaafadaba ka tanaasulo waxay leenahay markaa waxay tilmaamaysaa fadliga islaaxu fadiilada uu leeyahay alislaax bayna annaas iyo dimaa'u lmuslimiin in la joojiyo inay tahay wax looga dhaadhaco kuraasi iyo madaxweynenimo khaliifadii muslimka oo dhan baa aqbalay khilaafada inuu ka dhaadhaco mujarad in qadiyadatan dib loo hagaajiyo sulxigu heshiisku kaasi waa muslimiinta dhexdoodii fi siyaasa alkhaarijiyana u dhici kara dowladda muslimiinta hay cid kale oo gaalo oo ay ishayaan inay heshiis la geli karto waxaa ku filan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam quraysh markay isdilayeen ama qurayshi dagaal kula jirtay aan idhaahdo muslimiinta 19 sannadood kadib ayuu nebigu soo cimro tegay quraysh caadadeedu waxay ahayd beytullaahi alxaraam cidda cimraysanaysa ama timaada inaan loo diidin isagoo 1400 oo ciidana wata nebigu calayhi salaatu wasalaam aan dagaal ku soo talagelin soo cimro tegay buu yimi qurayshi way u diiday inuu galo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi maanta shay kasta waa ilaahay xurumaadkiisa ku weyneynayaan quraysh waa la gelayaa qurayshi wufuud bay soo dirtaa dhowr nin bay kolba nin soo dirtay nebigu ay wada hadlaan wuu noqdaa cid kaley soo diraan akhiiran qurayshi waxay aqbashay bal inay heshiis geli karto waxay soo diratay nimaan markaa islaamin oo saxaabi ah saxaabiga la soo diray suhayl ibnu camar saxaabi la odhan jiray oo markaa gaalada ka tirsan ayay soo dirteen suhayl ibnu camar weliba waxay yidhaahdaan culamaai taariikh kar ka midi waa guryihii laga islaamay ee colaaddu ku jirtay buu ka mid ahaa 4 wiilow dhalay iyo 3 nin ay walaalayiin baa intuba islaameen marka waa oday dagaalansan oo u arkayo qoyskiina in laga dhacay suhayl ibnu camar iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam heshiis bay wada galeen
heshiiska qurayshi waxay rabtaa marnaba inaan la odhanin iyagoo aan u fasixin cidi inay maka timaadaas qasab lagu yimi muslimiintu ku timi masaladaa ma aqbalayno sanadkan waa inaad noqotaan in lowbaylow cimre ma jirto sanadka dambe kaalaya idinkoo sita hub musaafir qaato oo qura annana magaaladaanu idinka baxayna waa ceebina la arko idinkoo meesha marmarayo annanaanu joogno waa idin yaro banaynaynaa 3 casho cimraysta baxa waxyaabaa lagu heshiiyey waxaa ka mid ah 10 sannadood in dagaalka la joojiyo oo dadku balu heshiiyo waxaa ka mid ah ciddii muslima ee aan reerahoodu soo fasixin ee gaalada ka timaada inay muslimiintu celiyaan oo quraysh dib loogu celiyo cidda muslimiinta kasoo ridowda ee xagga gaalada timaadana inaan dib loo soo celinin waa bandi iyagu xaggooda ku darsadeen heshiiska noocaasi qabaa'ilka kale carbeed cid waliba ciddii ay ku biirto inay xaq u leeyihiin ciddii heshiiska darafka nebi maxamed galaysa calayhi salaatu wasalaamna inay geli karto darafka quraysh ciddii rabta inay gashaana inay geli karto oo khusaaca baa nebi maxamed xaggiisa ku biirtay qolyo kalena xagga quraysheed bay ku biireen heshiiskaas buu nebigu aqbalay inuu la galo heshiiskan muslimiinta dan weyn baa ugu jirto waa awal mara la ictiraafo oo qoraysh ay aqbasho awal waxay u arkayeen koox yar oo diintoodii ka baxday oo baxsatay oo meel degtay oo dagaal lagu wado laakiin marka kan waa dowlad heshiis lala gelayo waa nooc min al-ictiraaf loo ogolaaday ummad halkeeda degan inay tahay qoladan xaggooda joogto heshiiskii markii uu aqbalay nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa cali ibn abi aalib baa la yidhi qor heshiiska cali baa qoray waxaa la yidhi waxaad qortaa hada ma kataba calayhi muxamedun rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam kani waa wixii uu nebi muxamed oo ilaahay rasuulkiisii kula heshiiyey u kaadi buu yidhi aqorin buu ku yidhi cali wuu qoray suhayl ibn camr wuxuu yidhi haddaan kuu garanayo inaad nebi tahay iyo rasuul kulamaan dagaalamayne magacaaga ku qoro buu yidhi waxaan kalena ka masax waxaad qorataa maxamed oo ina cabdilaahi waa wuxuu heshiiska kula galay quraysh laakiin rasuulullahi daa ka masax cali ibn abi aalib baa yidhi ma ilahay rasuulkiisaa diidantay wallaahi inaanan masaxaynina way ku oolaysaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartay ilaahay rasuulkiisii baan ahay xataa haddaa ay beenisaan calina wuxuu ku yidhi bal meeshay ku qoranta i tus nebigu waxba ma qori jiray waxna ma akhri jiray calaa uu tilmaamay nebigaa gacantiisa ku masaxay dabeetana wuxuu yihi waxaad qortaa bismi illaahi araxmaani araxiim suhayl ibn camr wuxuu yihi ukaadi aqorin waa maxay raxmaan raxiimka aanu garan maayo buu yihi raxmaanka aad sheegayso ee waxaynu naqaanay qoro oo ah bismika allaahumma magaca alle ayaan ku bilownay qor laakiin arraxmaanta kadaa buu ku yidhi nebigu wuxuu yihi u qor siday rabaan bismika allaahumma qor heshiiskaas markii la galay uu nabigu calayhi salaatu wasalaam la galay ayaa waxayse soo taagayba odaygani nin uu dhalay oo muslima oo meelihii lagu xidhay ka soo baxsaday oo silsilada jiidaya silsilada ku xidhan yihiin oo le muslimiinay isle maanta muslimiintii kuu soo dhawaatay aad halka ka raaci dabeetana odaygii wuxuu yidhi kanbaa ugu horeeya waxaan heshiiska kugula galay nabigu wuxuu yihi war weli heshiiskii mabayna dhammaynayso may buu yihi wax dambeba abidkii kula geli maayo haddaan kan la celin kanbaa kow ka ah nabigu wuxuu ku yihi ajisni war kan ii sii daa midhkaa una ii sii daa ma aqbalaya buu yihi wuu ku celceliyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu diiday saxaabigiina wuu qaylinayaa wuxuu leeyay muslimiinay magaala igu celinaysaan iyadoo waxaa aragtaan laygu sameeyey ma waxaa rabtaan in diintayda layga fitneeyo war nimanka dib ha igu celinina buu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam walla hadda wuxuu ku yidhi abijandal saxaabigan yare la yidhaahdo ya abijandal isbir waxtasib buu nabigu yihi ballan baan galay ballankana kama baxo ee sabir oo wixii ku soo gaadha ilaahay dartii xisaabso
sabir oo adkayso wixii dhib kugu dhacana ilaahay dartii xisaabso aniguna ballan baan galo ka bixi maayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay leenahay heshiis buu la galay quraysh in dagaalka la joojiyo waa nooc min asulx heshiiskan daahirkiisa sida dadku ay moodayeen waxaa la moodaya inay qurayshi bursatay laakiin ma aha waxaa la yidhahaa 2 sannadood oo quru heshiiskani sii shaqeeyey kadib quraysh baa burisayba 2 sannadood ee uu shaqaynayey awal waa dagaal baa socday dagaalku iyo seeftu markay socotana dadku isma dhegaysto laakiin markii seefta la joojiyey ma jirin bay yidhahdaan nin carbeed oo caqli lahoo diinta loo soo bandhigay ilaa iyo uu islaamo islaamku uma faafin 2 sannadood sidii uu faafay intii ka horreysay oo dhan waxaad ka garan kartaa marka kan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam 1400 1500 oo nin waxaan gaadhin buu wataa 2 sano kadib markuu maka qabsanayna wuxuu watay maxay 10,000 8,000 oo askari ciidan 10,000 ku dhadhow yani waxaasoo dadii way soo islaameen bale asxaabi alcuquul qaadadii quraysheed raggoodii ugu muhiimsanaa rag ka mid ah 2 sano nebiga uu islaamay calayhi salaatu wasalaam raggii soo islaamay sulxu xudaybiya intii lagu jiray dee khalid bin waliid baa ka mid ah camar ibnu caas baa ka mid ah raggii waaweynaaye islaamka soo galay idan waxay idhaahdaan fursadda nabadda islaamku wuu ku koraayo wax kuma noqdo haddii dadka xorriyadiyo nabad la siiyo islaamku wuu ku koraa walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam heshiis buu la galay ilaahayna heshiiskaa qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamaya inuu fatxi yahay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laka allahu ma taqadama min danbika wama ta'ahar wayutima nicmatahu calayka wayahdiyaka siraatan mustaqiima wayansuraka allahu nasran casiiza fatxiga kan waxay culimmadu ku fasiraan inuu yahay fatxu maka maaha inuu yahay sulxu xudaybiya innaa fataxnaa laka fatxan mubiintani inuu yahay sulxu xudaybiya waayo waa fatxigii keenay inay diinta dadku si xoogan usoo galaan waa fatxigii keenay inay bulshada muslimiintii xoogaysato inay cid waloo kaleba iska dhicin karto waa sulxigii keenay inay ictiraaf duwaliya hesho dowladdii yarayd ee muslimiinta aydee madiine ka jirtay oo ah akbar caduw ka soo horjeeda oo dadka ku lahaa waa dhallinyaro naga soo baxsatay oo annaga naga tirsan ayaa u ictiraafay kayaan jira iyo dowlad jirta inay tahay quraysh baa ictiraaftay dabeetana waxay noqotay acraabtii iyo qabaa'ilkii kale carbeed ee isku eegayay bal dagaalkoodu meeshu ku gabagabooba inayana ictiraafaan ay noqdaan uma jirta ilaahay uu ku tilmaamayo wayutima nicmatahu calayk waxaan leenahay marka majaalaadka sulxigu gaal iyo muslim ama dowlad muslim iyo dowlad gaal u dhex dhici kara fi siyaasa alkharijiya wuxuu dhex dhici karaa fi siyaasa daakhiliya ummadda muslimka ah wax kastoo ay isku hayso ha noqoto kuraasi iyo siyaasad ay isku hayso iyo madaxnimo wuu dhici karaa wuxuu dhici karaa dagaallo qabiil iyo wax la mid oo ay isku hayso wuxuu dhici karaa adduun iyo hanti iyo dhul iyo wax la mida oo ay ku muransan yihiin sulxiga haddaba mu'miniinta dhexdooda dhaca isagu shuruud buu u baahan yahay ilahay wuxuu leeyahy faaslixuu baynahumaa bilcadl maanta dad badan oo dadka isku daya inay dhexdhexaadiyaan baa waxay ku dhexdhexaadiyaan wax kaloo baatila dhexdhexaadin aan sax ahayn ilahay wuxuu leeyahy sulxigu waa inuu dhaca maxay bilcadl cadaalad kow sulxi kasta oo wax xalaala xaaraantinimeynaya ama wax xaaraana xalaaleynaya ma banaana sulxi shareecadu ay taqaano maaha mithaal aan idin siiyo xadiiska bukhaari warinayo nin acraabiya qolo reer miyiya ayaa ninbaa inankiisii nin kale qowsaar ka dhigtay ama dhoobi xoolaha inuu raaco kiraystay markaa wuxuu aqbalay inuu qowsaar xoolaha u raaca noqdo
waa laba nin oo muslimiin oo reer weeye. kii xoolaha raacayay ee ninkii dhallinyarada ahaa ayaa dhaqan xumo sameeyey. ninkii xoolaha lahaa xaaskiisii buu faraxumeeyey, gabadhii baa la isafgartay, waa zinaystay. odaygii inanka dhalay ayaa wuxuu is yidhi inankaagii armaa la rajmiyaa, war ninkan iskala heshii, meel fog baa ha tegine. dabeetana ninkii xaaska qabay buu yimi, wuxuu yihi war heedhe, jaariyad yar waliida, gabadh yar oo jaariyad oo khaadimado kuu shaqaysa iyo 100 neef oo adhiyaan ku siinayaa inanka ii siida, yani rajmiga ayaa waxaa siiya. waayahay buu yidhi. 100kii neef ee adhiga ah buu ka qaatay ninkii gabadhiisa la faraxumeeyey iyo waliidadii yaray. kan inanka dhalay baa haddana wuxuu maqlay, uu ka yara aqoon roonaaye, inaan isaga inankiisu inan yaroo dhalinyaro aan horeba u guursan bu hay inaan la rajminaynin. dabeetana muran baa dhacay, waa la isqabsaday. nabigaa la isula yimi calayhi salaatu wasalaam. acraabigii baa wuxuu yihi yaa rasuul allah, unshuduka allah ilaa qadayta lii bilkitaab, ilaahay baan kugu dhaariyeye kitaabka alle nagu kala xukun argaya ninkan buu yihi. ninka acraabigii diin badan garan maayo, wuxuu is leeyahay intan xoolahan iyo intan waad qaadan karaysaa. dabeetana wuxuu leeya ilahay kitaabkii nagu kala xukun. kii kale oo markaa isagu cid wax soo widweydiiyo ka aqoon roon baa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo nagu kala xukun, iina ogolow anigu inaan hadlo. hadal baa la yidhi. arrinkii buu sheegay. inankaygu buu yidhi ninkan buu u shaqaynayay. dabeetana gabadhii xaaskii ninkani uu qabay ayuu ka zinaystay. kadibna inankaygii waxaan ku soo furtay 100 neef oo adhiya iyo jaariyad inaan siiyo. haatanse waxaan ogaaday arrinku inaanu soo ahayna deenna kala xukun. ahlu cilmiga markaan weydiiyey waxaa laygu yidhi inankaaga in 100 jeedal lagu dhufto sanadna la masaafuriyaa lagu leeyahay, wax kaloo lagugu leeyay ma jirto. dee ninkan xoolahaygiiyo waxa iga haysiiyo. nabigu wuxuu hi waan idin kala xukumaya, war soo saar raalli kuma tihdin haa. wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, inankii baa la weydiiyey war ma samaysay? haa buu yidhi. wuxuu hi wiilka kan 100 jeedal ha lagu dhufto, sanadna ha la masaafuriyo. odaygii kalena wuxuu ku yihi 100kii neefa adhiga ahaa iyo jaariyadiiba waad celinaysa, soo celi, ninkan u celi xoolihiisiiyo wixiiba. saxaabi kaloo halkan fadhiya unaysa la yidhaahdo nebigu wuxuu hi war adiguna kac, berri bax, reerkii ninkan u tag, su-aasha a weydii inay zinadaa qabtay iyo inaanay qabin. hadday qirato rajmi buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. wiilkan yidhi waan zinaystay, iqraarku isagunbuu ku kooban yihi. gabadho hadday tidhahdo warana waxba maanan zinaysana naga tag, waxba laguma laha. haddii kale waa in 4 markhaati la keena. kan le waan ka zinaystay, bes adaa qartay unbaa la odhanaya, isagunbaa la jeedalaya, gabadha waxba la weydiin maayo. laakiin markii iyadiina loo tegayana waxay tihi mayaana waa zinaystay, waa qaratay, iyadiina waa la rajmiyey. dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu celiyey xoolihii. culammadu markaa waxay dhahaan sulxi kasta oo xalaal xaaraantinimeynaya ama xaaraan xalaaleynaya sida kan oo kale, waxay dhahdeen waa muntaqid, walma'khuudu calayhi mustaxaqu raddi buu ibnu xajar alcasqalaani leeyahy. wixii hanti lagu qaatayna waa la celinaya. amase nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidka tirmidi warinaya xasanun saxiixa uu ku tilmaamay, sheekh alalbaanina saxiixa uu ku sheegay, wuxuu leeyahy asulxu jaa-isun bayna almuslimiin ilaa sulxan xarama xalaalan aw axalla xaraama. heshiis kasta oo ay muslimiintu galaan waa la aqbalayaa mid sharciga dhaafaya mooyaane. waxa lagu heshiinaya waa inaanu ilaahay xuquuqdiisa noqonin, waa inay xuquuq bini aadam noqotaa. oo ilaahay xuquuqdiisa heshiis ma gasho. heshiisku waxay yidhaahdaan labada darafba waa inay raalli ka noqdaan, in qolo lagu qasbo lagu sanduleeye maaha. heshiisku waa dad laysu soo dhadhaweeyey, labada qoloba waa inay raalli noqdaan. waayo culammadu waxay dhahdaan caqdiga sulxiga iyo caqdiga bayca, yacni wax kala gadashada waxay ku asaxdo sulxiguna ku asaxaba la dhaha. labada caqdi waa isku mid.
walidalik baa imaam shaafici raxmat ullaahi calayh waa ku tilmaamaya wax kasta oo beeca shardi u ah inuu islaaxana shardi u yihi dee islaaxa waxaynu naqaanaa in ilaahay qur-aanka ku yidhi maxay tijaarada ilaahay qur-aanka muxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaطili ila an takuna tijaarata can taraadin minkum walaa taqtuluu anfusakum in allaha kana bikum raxiima can taraad ayay tijaaradu ku dhacdaa sulx beeca waxaa shardiya inuu macluum yahay socankaa maaha waxa la kala gadanaya wax la garanayo oo ama mitra lagu xisaabiya ama wasna ama kayl ama wuxuu doonaya ha noqdee wax macruufa inuu iyo macluuma fakadalika sulx waxa lagu heshiinayana waa la iska heshiiyuun maaha waa inuu wax macluumaya haddaan labada daraf waxay ku heshiinayaan aanay wax qoran oo la garanayo macluum aan ahayn isaguna waa baatil marka waxa la yidhaha bunuudu sulx labada kooxood ee ishaya agtooda labadaba waa inay macluumtay si awgeed buu imaam shaafici wuxuu leeyahy aslu sulxi annahu bimansilati اlbayci fama jaaza fi اlbayci jaaza fi الsulxi wma lam yajus fi اlbayci lam yajus fi الsulx wla yajuusu الsulxu cindii ila clى amri macruuf kama laa yajuusu اlbaycu ila clى amri macruuf sulxigaas shareecada waafaqsan hadday dadku sameeyaan waxaynu hi waa cibaado ilaahay loogu dhowaado waa wax adduunka lagaga badbaado muhlikaadka walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum lagaga badbaado waa wax keensanaya shareecadiioo la fuliyey waa wax keensanaya dadka quluubtoodii oo laysu soo celiyey waa wax keensanaya waqti iyo hanti iyo xoog badan oo ay ummaddu lahayd oo isku jabi lahayn la kala badbaadiyey sidaa awgeed ayuha alikhwa waxaan leenahay in dadka la heshiisiyaa waa wax khayr badan cidda sulxiga sameynaysaana waxay u baahan tahay kow qadiyadda aad dadka ka heshiisiinaysa inaad si fiican u garanayso gunteeda iyo asbaabteeda iyo waxeeda inaad garanayso waxay dhahdaan inaad taqaanaa adab alxiwaar waalmufaawadaat qaabka gorgortanka iyo dadka loola hadlayo laysugu soo dhaweeyo waa aqoon dhan baa maanta dunida laga dhigay almufaawid alfulaani baad maqlaysaa waa wax u baahan tadriibaad iyo barasho waxay u baahan tahay baa la leeyahy cidda rabta inay dadka dhexdhexaadisa inay cid xiyaad ku sugan tahay cid dhex ah oo nin marka horeba hawaahu ay dhan la jirtaa dhexdhexaad ma noqon karayo waxaa la dhahaa cidda wax dhexdhexaadinaysaa waxay u baahan tahay cid aan degdegin ee qadiyadda hubisa inuu noqdo waxay dhaha cidda wax dhexdhexaadinaysaa waxay u baahan tahay inuu noqdo cid wax dhegaysan karta oo bini aadamka inaad mushkiladiisa xallido waxaa ka mida bay idhaahdaan inaad warkiisa horta dhegaysato uu kuu sheegan karo wuxuu rabo oo dhan haddaad markuu laba eray yidhaahdaba afka aad kaga boodo waxba ma xallili karaysid waxay u baahan tahay nafsiyan buu qofku murtaax u noqonaya haddii warkao dhan laga dhegaysto wuxuu cabanayo o dhan iyo wuxuu sheeganayo o dhan haddii la aqbalo inuu soo bandhigo laga dhegaysto waxay u baahan tahay bay yidhaahdaan atraafta xataa ishaysa in laga qeyb geliyo islaaxaya waxay u arkayaan ayuha alikhwa waxaan leenahay markaa sulxigu maanta iyo heshiisiintu innaga sharcigeenna waa wax ku qoran itijaaha caalamiga qaanuunigina waa meeluu hadda u socdo mufaawadaat iyo gorgortan iyo in dadka la heshiisiiya aakhiriya adduunbana waa wax khayr ku jiro walidaalika waxaynu u baahanay dadkaas risaaladaa qaadaya ee waayeelka leh ee waxgaradka leh aqoon-yahan leh ee wadaada leh inuu arkaan cibaado ilaahay loogu dhowaado adduunkana midho dhasha inuu yahay wax kale waayo xilkani wuxuu u baahan yahay in wakti la geliyo in hanti la geliyo in juhd iyo awood la geliyo ayuu u baahan yahay in caqli iyo maskax la geliyo u baahan yahay waxaan kusoo koobaya marka haddaynu muslimiin nahay imaa waa inaynu iscafinaa waynu waxaynayo dhan ka tanaasulnaa imaa waa inaynu sulx iyo heshiis qaadanaa oo ah
inaynu isu tanaasulno meel dhexa isugu nimaadno adnaad wax ka tagtid annaan wax ka tago innagoo ilaalinayna danta guud iyo danta caamka ah si aynu labadeennuba u wada guulaysan karno waxay dhahdaan gaaladu waa win-win solution bay dhahdaan yani waxay dhahdaan muranka dadku isqabtaa laba mid buu noqdaa nataa'ijta la gaadha ama saddex mid buu noqdaa bay dhahdaan dariiqo ay u yaqaaniin thaqaafadoodii kristanka ahaa ama yahuudiga ahaa bay ninka soo qaataan shamshuun nima yidhaahdaan shamshuun dariiqadeedu waxa weeyaan waa annaan wax ku waayo adnaad wax ku weydi labadeennuba aan halaagsanno labadeennuba aan hoognada waa shamshuun theory bay yidhaahdaan oo waa farsamo ay sheegaan ama bay yidhaahdaan inuu midna yidhaahdo waan faa-iidaya qolana ay khasaarto oo kala xoog badni lagu dayo labadaa dariiqaba waxa ka fiican bay yidhahdaan win-win solution win-win solutionku waa maxay adna inaan guulaysto adna aada guulaysato adnaa wax kuu ogolaadoo dhan marka la eego faa-iida kuugu jirta adna wax lai ogolaadoo dhan marka la eego faa-iida igu jirto marka labadeennuba ma jiro cid zero tagtay zero sum gameku isagu waa kan ah shamshoonka inaad labadiinuba isla jabtaan kan ah inuu midna guulaysto midnana wuu adag yahay sida loo gaari karaa waa in qolo un la tirtiro soomaalina istishay oo reer la tirtiray lama hayo waxa qura ee macquulka ah ee laysugu iman karaa waa maxay waa win-win solution inaad ku tala gasho aqbashid isna inuu guulaysto adna aada guulaysato oo ah meel dhexa in laysugu yimaado intaa waxaa loo dhaafaa waa masalatu altaxkiimi waalqadaa iyana waxaan isku daya inaan habeen damba soo bandhigo sala allahuma calaa nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin